gudoomiye adigu Soomaaliland ma ictiraafsanta maya maxaa gudoomiye u ahayd waxaan gudoomiye u ahaa hadalkaygiina aan ku daray waxa jiray Soomaaliya way burburtay waxa la samaystay maamullo baa la samaystay waxa go'aankayga iyo taladaydu ahayd goobo badan aan ka sheegay anigoo wasiir ah iyo anigoo gudoomiye ah ma kaliya gudoomiye ahaa xukuumaddii ka horeysay 5 sanadood iyo badbaan wasiir ka ahaa wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ka noqday wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guryeynta ka noqday waxaan sidii aan tilmaamay ay ahayd in ay ahayd wax loo baahan yahay oo waqtigeedii yimi oo in lagu meel gaaro ay oo ay ahayd dadkayguna runtii tala midaysan oo ay meel ku gaadheen aanay jirin oo ay meelo badan kala jireen waxyaabaha ka midka waxa ka mid ah in dadka xuduudda aan wada deganahay aan ku kala nabad galno maamulkaas iyo in dadkaygu wixii horumar ah ama hawl soo mareen inay system u helaan arrintaas un bay ahayd tii aan ku shaqaynayay maanta waxaa timi dadkayga oo ku midaysan inay taladooda iyagu gaar la noqdaan